subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo ee raadiyaha Simba. faahfaahin kala duwan ayaa laga helayaa iska horimaad u dhaxeeya al-shabaab iyo ciidamada militariga Soomaaliya oo xalay ka dhacay duleedka degmada Waajid ee gobolka Bokool. dowladda dalka Talyaaniga ayaa ballanqaad horle oo lacageed u sameysay dowladda dhexe ee Soomaaliya. maxkamadda sare ee Somaliland ayaa laga codsaday in baaritaan degdeg ah ay ku sameyso asgar la sheegay inay ka tirsan yihiin ciidamada Somaliland oo jirdil haweenay Soomaaliyeed. Puntland ayaa maanta diyaaradii labaad oo sida gargaar waxay u diraysaa deegaano hoos yimaada degmada Caluule ee gobolka Bari oo duufaano iyo roobab ay ka da'een. madaxweynaha Jubbaland ayaa eedeymo xoogan mar kale u jeediyay dowladda dhexe ee Soomaaliya kuna tilmaamay dowlad curyaaminaysa maamulka Jubbaland. akhbaaraadka dibadda waxaan idin haynaa dowladda dalka Turkiga oo sheegtay inay taageerayso dowladda beesho caalamka ay qoonsan tahay ee dalka Liibiya iyo barakac xoogan oo wali ka socda gobolka Idlib ee dalka Suuriya. markale subax wanaagsan dhageystayaal waa subaxnimo isniina taariikhduna ay ku asteysan tahay 23 bisha 12 sanada 2019 intii aad maqasheenna waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo ee raadiyaha Simba imikana ku soo dhawaada warkii oo dhan. aan ku bilaabo ee warar kala duwan ayaa laga helayaa dagaal u dhaxeeya al-shabaab iyo ciidamada militariga Soomaaliya oo xalay ka dhacay deegaan hoos yimaada degmada Waajid oo ka tirsan gobolka Bokool. ciidamo ka tirsan kuwa xooga dalka Soomaaliyeed oo socdaal ku ahaa qeybo kamid ah degmada Waajid iyo deegaanada hoos yimaada ayaa waxaa la sheegay in weerar dhabagal ah ay kala kulmeen dagaalyahano ka tirsan xarakada al-shabaab kuwaas oo ku sugnaa deegaan dhowr iyo 10 kiiloomitir dhinaca bari kaga beegan degmada Waajid ee gobolka Bokool. inkastoo dagaalkan uusan geysan khasaare iskugu jira dhimasho dhaawac sida ay saraakiisha ciidamada koonfur galbeed idaacadda Simba waxa xaqiijiyeen, haddana waxaa jira in saacado kooban ciidamadu ay hakad galeen dabadeetana ay socdaalkooda sii wateen. dhinaca kale ma jiro wax war oo ka soo baxay dhinaca xarakada al-shabaab oo ku aadan dagaalkan iyo sidoo kale khasaaraha uu geystay, balse deegaano iyo degmooyin muhiim ah oo ka tirsan gobolada Baa iyo Bokool ee maamulka koonfur galbeed waxaa maamula go'doon ku soo rogay degmooyinka xorta ah xarakada al-shabaab kuwaas oo marmarka qaar weerar dhig badan uu ku daatay ka geysta saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa koonfur galbeed ee ku sugan qaybo kamid ah gobolka Bokool. degmooyinka Xudur, Diinsoor iyo sidoo kale Waajid iyo waliba Buurhakaba waxaa hadda gacanta ku haya ciidamada militariga Soomaaliya iyo kuwa koonfur galbeed, balse deegaanadaasi waxaa go'doon ku soo rogay xarakada al-shabaab. wayna adag tahay in raashinka qoonto daruuriga ah ay si fudud ku galaan degmooyinkaasi. degmada Waajid oo ka tirsan gobolka Bokool asbuucyadii aynu soo dhaafnay ciidamada militariga Soomaaliya waxay wadeen howlgallo ay kula dagaalamayaan xarakada al-shabaab isla markaana ay doonayaan in ay ku baneeyaan wadooyinka muhiimka ah oo shabaabku ay go'doomiyeen. dowladda dalka Talyaaniga ayaa ballanqaad horle oo lacageed waxay u sameysay dowladda dhexe ee Soomaaliya. Cabdicasiis Saciid Yuusuf ayaa warkan faahfaahinaya. dowladda dalka Talyaaniga ayaa dowladda federaalka Soomaaliya u sameysay ballanqaad horle oo la xiriira inay siin doonto lacag gaaraya malaayiin dollar oo ay ugu deeqi doonto wasaaradaha kala duwan ee dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda caafimaadka oo dowladda Talyaaniga ay hore u ballan qaaday inay siin doonto lacag gaaraya 6 milyan oo dollar. hase ahaatee dowladda Talyaaniga ay weysay qorshe cad isla markaana ay musuqmaasuq iyo waxyaabo la xiriira dowladda federaalka Soomaaliya ay Talyaaniga ku eedeysay taa oo keentay inuu dib dhac ku yimaado lacagta
oo ay u ballan qaaday muddo laga jooga 6 bil ka hor hase ahaatee lacagtaasi aysan weli soo gelin gacanta dowladda federaalk Soomaaliya. Talyaaniga oo doonaya in loo soo bandhigo qorshe cad oo lagu fulinayo lacagtaasi oo loogu talagalay in wax looga qabto arrimaha caafimaadka iyo sidoo kale arrimaha fatahaadaha ee gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolkaasi oo fatahaado ay ku dhufteen muddooyinkii la soo dhaafay, taa oo keentay in haatan dowladda Talyaaniga ay dib u dhac ku keento lacagahaasi ay ugu talagashay inay ku bixiso wasaaradaha kala duwan ee dowladda federaalk Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda caafimaadka. Fawzi Abikar Nuur, wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk Soomaaliya oo hortagtay kalfadhiga baarlamaanka federaalk Soomaaliya maalnimadii shalay ay ku yeesheen xarunta Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho, ayaa waxaa su'aalo laga weydiiyay arrimaha la xiriira wasaaradda caafimaadka iyo sidoo kale lacagahan ay u ballan qaaday dowladda Talyaanigu inay siinayso wasaaraddeeda. waxayna Fawzi Abikar Nuur sheegtay in ay xukuumaddeedu ka shaqeynayaan ama wasaaraddeedu ay ka shaqeynayso sidii wax looga qaban lahaa arrimaha loogu talagalay lacagtaasi. waxayna sheegtay in dowladda Talyaaniga ay ballan qaaday lacago hor leh ugu deeqi doonto wasaaradda caafimaadka, isla markaana magaalooyin 5 gaaraya ay ka fulin doonto barnaamijyo caafimaad oo lagu horumarinayo tayada caafimaadka dalka Soomaaliya. mar walba waxaan u taaganahay dadka masaakiinta in ay gaarto service hadda ka hadlaysaan caafimaadka. waxaan rabaa inaan ku dhex darsado intaan su'aalaha ka jawaabin. dowladda Talyaaniga ayaa waxay noo qoondaysay oo naga kaalmaysa Martiini iyo Banaadir 8 isbitaal inay dayactir inta ay bixisay wax yar waaye oo 3 milyan ay dayactir ka samayso running costigan isbitaalada ay siisa. waxaa ka mid ah Banaadir, Martiini, isbitaalka Forlanini madaxa iyo TB-da, Jowhar, Beledweyne, Garowe, Gaalkacyo, Hargeysa Group Hospital, Xudur oo dayactir markaas waa in hoos laga soo bilaabo la soo dhis, iyo marka wada hadal dheer iyo baryo badan because aan ku daro waa baryo tamayna runtii. waxayna siinayaan lacag ilaa 3 milyan gaarayso laguna dayactiraayo laguna Talyaaniga sababta Talyaaniga waxay sameeyeen 3 sano ka hor cilmi baaris isbitaaladii regionalka meesha ay taagan yihiin iyo waxay ka qaban karaan. lacagta waa yar tahay laakiin at least running costiga inuu socdo isbitaalka serviceki primary health care caafimaadka aasaaska hooyada iyo dhallaanka TB-da iyo HIV AIDS malaria iyo at least intaas inaysan istaagin. dowladda dalka Talyaaniga ayaa horey u ballan qaaday inay sii doonto lacag ay ugu talagashay in wax looga qabto arrimaha caafimaadka iyo sidoo kale arrimaha fatahaadaha ee gobolka Hiiraan. hase ahaatee waxay u muuqataa in lacagtaasi haatan uu dib u dhac ku yimid maadaama wasaaradda caafimaadka iyo sidoo kale wasaaradaha kale ee ka tirsan dowladda Soomaaliya lagu eedeeyay inaysan ula tagin dowladda Talyaaniga qorshe cad oo lacagtaasi ku bixinayso iyo sidoo kale wax lagu qabanayo. maamulka Puntland ayaa waxa uu shalay deegaano ka tirsan gobolka Bari gaarsiiyay deeqo iskugu jira raashin iyo sidoo kale teendooyin kuwaas oo lagu talagalay dadka uu saameynta ku yeeshay roobab iyo duufaano ka da'ay gobolka Bari. Cabdiraxmaan Maxamuud ayaa warkan faahfaahinaya. madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash wafdi hogaaminaya oo booqasho ku tagay degmada Caluule ee gobolka Gardafuul ayaa halkaas wuxuu ka daafuray gurmad la gaarsiiyay dadka ee roobabku ay saameeyeen ee ku nool gobolka Gardafuul. madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa si rasmi ah u daafuray gurmadka la gaarsiinay dadka roobabka ay saameeyeen waxaana diyaaradda madaxweyne ku-xigeenka Axmed Karaash la socday gurmad waday. sidoo kale oo sheegay madaxweyne ku-xigeenka inay bulow u tahay dowlamaadyo toddobaadkan gurmad ay gaarsiin doonaan maamulka Puntland gobolka Gardafuul deegaano ka tirsan. sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa waxa uu sheegay in Puntland ay mar walba diyaar u tahay inay garab istaagto dadka ku sugan deegaanada maamulka Puntland ee saameeyeen roobabka. wuxuuna sidoo kale uu xarigow ka jaray isla shalay garoonka diyaaradaha degmada Caluula oo dayactir lagu sameeyay. waxauna sheegay in isla maanta ay ka digi doonaan diyaarado sida gargaar loogu talagalay dadka roobabka ay saameeyeen. wafdiga madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland waxaa ka mid ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka maamulka Puntland
abuukaati cabdicasiis cabdulaahi cusmaan xubno ka mid ah labada gole ee maamulka puntland taliyaha ciidamada booliiska puntland jenaraal muxudiin axmed ow muuse agaasimaha hay-adda maareynta musiibooyinka puntland cabdulaahi cabdiraxmaan cayrow iyo ganacsato iyo siyaasiyiin hore oo xilal kasoo qabta maamulka puntland dowlad goboleedka puntland ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay dadaal ugu jira sidii loogu gurman lahaa dadka roobabka ay saameeyeen ee ku nool deegaanada ka tirsan degmada caluula ee gobolka gardafuul ee maamulka puntland. maxkamadda sare ee maamulka somalilan ayaa laga codsaday in baaritaan deg deg ah ay ku sameyso askar la sheegay inay si xun u jirdileen haweeney soomaaliyeed. saacadihii u dambeeyay waxaa jiray muuqaalo aada u naxdin badan oo lagu baahiyey baraha ay bulshadu ku xiriiraan. muuqaalkaas oo laga soo duubay ciidamo ka tirsan kuwa booliiska somalilan kuwaas oo jirdil xoogan u geysanaya haweeney ku sugnayd degmada wajaale ee maamulka somalilan. falkan ayaa waxaa la sheegay in markii hore ay ku dhaqaaqeen laba asgari oo ku sugnaa goob qaadka lagu gado, waxaase xigtay in markii dambe ciidamo kale ay goobta yimaadeen, dabadeetana ay si xun u jirdileen gaari nooca cabdibilahana ay saareen haweeneydaasi. xubnaha mucaaradka iyo sidoo kale kuwa u dooda xuquuqda haweenka ayaa waxa ay ka turxaan bixiyeen qaabka haweeneydaas loola dhaqmay, waxaana siyaasiyiinta qaarkood ay sheegeen in baaritaan lagu sameeyo arrinkani. siyaasiga lagu magacaabo siciid cabdi dhegey oo ka mid ah siyaasiyiinta ugu caansan deegaanada somalilan oo warbaahinta kula hadlaya magaalada hargeysa ayaa ficilkaasi waxa uu ku tilmaamay mid aada looga naxay. waxaa aad noo xanuujisay oo dee aad u xanuun badnayd maalmahan social media aad ku arkayseen ruux dumar oo dee wajaale ciidanka booliisku dilayo dee ismaan lahayn dee macnaha dhacdada caynkaasoo kale dee ciidamadiina way ka dhacaysaa 30 sano ka bacdi dee waayo ruux dumara weliba se la sheegay ruuxa dumarkii waa dhibane oo qof la dilay bay dhibane u haayeen. siday doontaan noqoto, hadday ul sidato, hadday dhagax sidato, hadday bud sidato, may geyn dee in sidaa loo garaaco dee shafka looga laaglaaga dee may geyn oo arrin qabanaysa sharcigeenna iyo dawladnimadeenna ceeb bay ku nusqaanbay cid kastoo daawatayna way ka qaraacantay runtii. arrintaasina waxa weeyaan si aanay u soo noqonin waa in laamaha amniga iyo ciidamada boolisku dadka dambiyada caynkaas sameynaya dadka nugul weliba hadduu qof raga yahay waa la iska qaadan karaa, waxaa la odhan karaa u dagaalamay ul buu samayn karaa, laakiin ruux dumaroo nugul saa u garaacaya si aanay u dhicin dee waa in tallaabo laga qaadan dee taana leen. sidoo kale wararna helin ayaa waxay sheegayaan in magaalada hargeysa looga yeeray taliyihii hogaaminaya ciidamadaasi islamarkaana maxkamadda sare ay la wareegtay kiiska haweeneydaasi si loo baaro, dabadeetana maxkamad loo soo taago ficilkaasi aadka u foosha xun ay ku kaceen ciidamo ka tirsan kuwa booliiska somalilan. weli waxaad maqlaysaan dhegeystayaal warka subaxnimo ee raadiyaha simba. markana akhbaaraadka dibadda, dowladda dalka turkiga ayaa waxay sheegtay inay taageero buuxda siin doonto dowladda dalka liibiya. wasiirka gaashaandhigga dalka turkiga oo warbaahinta kula hadlaya magaalada ankara ee caasimada dalka turkiga ayaa waxa uu si qoto dheer uga hadlay wararka sheegaya in markab laga leeyahay turkiga lagu qabtay gacanka cadmeed xilli uu la sheegay inuu ku socdaalayay wadanka liibiya. wararka ayaa intaasi waxay ku darayaan in dowladda dalka turkigu ay lahayd markabkaasi balse uu siday gargaar la gaarsiinayo dadka ku barakacay gudaha liibiya. wasiirka gaashaandhigga dalka turkiga ayaa wax laga weydiiyey in dowladiisu ay taageero siin doonto dowladda dalka liibiya ayaa waxa uu sheegay haa waan siin doonaa, waayo waa dowladda beesha caalamka aqoonsan tahay. ninkan ka dagaalamaya bariga dalka liibiya ee haftarna waa nin shacabkiisa dhammeynaya ayuu hadalkiisa sii raaciyey wasiirka gaashaandhigga dalka turkiga. ugu dambeyntiina barakac xoogan ayaa weli waxa uu ka socdaa gobolka idlib ee dalka suuriya ka gadaal markii habeennimadii xalay duqeymo xoogan ay ka dhaceen 12 xarumood oo dad barakacayaala ay ku sugan yihiin gobolka idlib. waxaa jira in barakac xoogan uu ka bilowday waqooyiga bari dalka suuriya.
hay-adda fadhigeedu yahay magaalada London ee dalka Britain isla markaana dusha kala socota arrimaha dalka Suuriya ayaa waxay sheegtay in ay ku dhawaad 14,600 oo ruux ay ka barakaceen gobolkaasi waxayna sheegtay in dadkan ay badanaa u kala hayaameen Ciraaq, Suuriya waa Ciraaq iyo sidoo kale Turkiga kuwaasoo hadda qaarkood inta ay safarka kusii jireen qaar ay dhexda ku dhinteen. hay-adda ayaa waxay sheegtay in loo baahan yahay in gurmad degdeg ah lala gaaro dadka isla markaana waxay ka cusubtay hay-addu in ay joojiyaan dowladaha dusha ka duqeynaya dalka Suuriya in gargaar la gaarsiiyo si dadkaasi loo samata bixiyo. guud ahaan dhageystayaal war wixii dal iyo dibad naga soo gaaray oo aad kala socoteen idaacadda Simba waa naga inta